tiirsadahay hadbakiina taagdaranay taageera weligiinay idinkaysu tooqaayo idinkaysu taamaye soomaaliyay tooso isku tiirsadahay hadbakiina taagdaranay taageera weligiinay kiina tiirinaysaa dexdakaaga siitaale allayow tilmaa wacanba midabkaagu taamkuyaho xidigtiina tiirinaysaa dexdakaaga siitaale soomaaliya ha noolaad munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen soona qabaqaabiyeen mas'uuliyiinta dawladda iyo guddiga taakulaynta dadka qaxootiga ah taasi oo loogu talagalay soo dhaweynta iyo dhisidda moralkooda dadka ka soo baxsaday dagaalada dalka Yemen ayaa xalayto lagu qabtay xarunta ay degan yihiin dadkaasi ee magaalada Boosaaso intii ay socotay xafladan ayaa laga soo jeediyay riwaayado maasooyin looga gol lahaa sidii dadkaasi loo soo dhaweeyay iyo khudbado ay mas'uuliyiinta dawladda nabadoonnada guddiga gurmadka qaxootiga iyo marti sharafta ka soo qayb gashay ay goobta ka soo jeediyeen barnaamijkan waxaa soo abaabulay dawladda Puntland waxaana maamulka xerada waxaana loogu talagalay soo dhaweyntii dadka reer qaxootiga Yemen la soo dhaweeyay qoladii hore waxaan u qabanay sports iyo ciyaaro qoladan maadaama ay la kulmeen bishii barakaysnayd waxaanu ugu talagalay in xafladatan isdhexgalka bulshada qiimaha badan aanu idinku soo dhaweyno marka horrac yar si xarunta qaxootigu waxay kamid tahay waa goob ay maamusho wasaaradda arrimaha guduhu leh maamul hawlaheeda si gaar ah uga hawlan xaruntan qaxootiga jiritaankeeda iyo waa goob lagu gargaaro dadka qaxootiga Puntland madaxweynaheeda iyo golaha xukuumaddu wuxuu gadoomiyay in la soo dhaweeyo dadka Soomaalida ah ee dib ugu soo noqonaya dalkoodii ee ka soo qaxaya Yemen waxaan filayaa in qof kasta og yahay in ka badan 1 milyan oo qof ama 1 milyan ku dhawaad oo Soomaali ah ayaa qaxooti inta badan sifo qaxooti ku joogay Yemen dadkaas oo imika dili ku leeyahay soo wada noqonaya number kale oo aan qaxooti ku joogay sifo kale ku joogay waa jiraan oo ayagu dadkooda ugu soo noqonaya dadkaas waa dad Soomaaliyeed dhulkaana waa dhul Soomaaliyeed cid kale ma jirto cid waa dhulkoodii soo dhaweyntooda iyo tamartooda iyo intii Allah ayadoo la arkaya in soo dhaweyntooda iyo taakulaantooda qayb weyn ay dawladda Puntland ka qaadataa waa siyaasad madaxweynaheeda iyo golaha xukuumadda ay qaateen annaguna saraakiishii farsamada ayada ku shaqeynaa dadkaas si habsamiya ayaa loo dhoofiyay oo nin wala meeshuu rabay loo diray halkaan xerada nasashada weeye 2 bari 3 bari ka badan laba joogo waa garanaysaan dad 1763 qof ayaa daryeel caafimaad farxad weyn bay tahay inaan kala soo qayb galo munaasabadan ciida awgeed waa aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay munaasabadan balaaran oo qiimaha iyo qaayada leh waa tii koowaad oo qiimaha aan arko magaalada Boosaaso lagu qabto munaasabadan waxaan rabaa inaan mahad celiyo kooxda Star ee fanaaniinta degmada Boosaaso waxaan kaloo rabaa inaan halka uga mahad celiyo hay'adaha samafalka gargaarka weyn u geystay qaxootiga ka yimid dalka Yemen waxaan kaloo rabaa inaan mahad celiyo hay'adaha iyaguna samafalka hay'adaha maxalliga dhamaantood mahad gaar ah ayaan u celinayaa waxaan kaloo rabaa inaan u sheego qaxootiga ka yimid Yemen oo u dhashay dalka Yemen-ta ah oo walaalaheena iyo kuwa Soomaaliyeed oo markii hore u baxay inay dawladda Puntland siyaasadeeda ay tahay inay soo dhaweyso ma hadda idinka la hayo shacabkii
puntland mahadnaga guddooma mudane cabdiweligaas magacaa jiro. dadka kulankan loo qabtay oo iyagu ku jira goobta xerada ayaa ahaa dad ka soo cararay dagaalada dalka Yemen, kuwaasi oo si weyn wajiyadooda looga dheehan karay xalay farxad iyo reyn, kuwaasi oo qaarkood ay qayb ka ahaayeen munaasabada lagu maamuusayay dhisidda iyo inay shacabka ay la wadaagaan farxadda Ciidul Fidriga.